asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maalmahan xiisad ayaa ka taagan mandiqada waqooyi bari aasiya, gaar ahaan labada kuuriya ee jabaan. waxaa sii kordhay xiisaddii halkaas ka taagnayd kadib markii uu maraykanku u diray maraakiib dagaal koonfurta kuuriya, halka waqooyiga kuuriya ay ku goodisay inay burburin doonto maraykanka naftarkiisa. haddaba halkan waxaan kugu soo gudbinayaa macluumaad laga yaabo inaad maqlaysa markii ugu horreysay oo ku saabsan ciidanka waqooyiga kuuriya oo si rasmi ah magac ahaan loo yaqaano ciidanka shacbiga kuuriya uuna hogaamiyo madaxweynaha waqooyiga kuuriya Kim Jong-un. ciidan ku hubaysan hubka nukleerka kuuriyada waqooyi si rasmi ah ayay u sheegtay inay haysato hubka nukleerka, waxayna si toos ah u baahisay tijaabooyinka nukleerka ayadoo mar walba ku goodiso inay dhulka la simi doonto wadamada koonfurta kuuriya jabaan ee uu maraykanku saldhigyo militari ku leeyahay, sidoo kalena ay duqayn doonto magaalooyinka maraykanka. ciidanka ugu badan ee abad sameeyay tijaabooyin dhanka gantaalada, taasoo ka dhigan qiyaastii hal tijaabo isbuuc kasta. arrinkaas kama dhacdo wadamada kale ee caalamka oo dhan markii la isu geeyo. ciidanka ugu taageerada badan xukuumad ahaan waqooyiga kuuriya waxa ugu muhiimsan waa ciidanka, sidaas darteed 40% miisaaniyadda dowladda waxaa la geliyaa ciidanka, waana tan ugu badan wadamada caalamka oo dhan. ma jirto dowlad nambar intaas la eg ama u dhow u qoondaysa ciidanka. 3.5 bilyan oo dollar ayaa lagu qarash gareeyaa ciidanka waqooyiga kuuriya sanadkii. dilitaanka hal askari oo kuuriyana waxay ka dhigantahay dagaal. ciidanka waqooyiga kuuriya ayaa si rasmi ah u baahiyey in uu duqayn doono dowladdii disha hal askari oo kuuriyana, gaar ahaan maraykanka, jabaan iyo koonfurta kuuriya oo waqooyiga kuuriya kala dhaxaysa cadaawad aad u dheer. dayax-gacmeedyada oo lagu ogaaday gantaalada waqooyiga kuuriya oo ku wajahan maraykanka. waqooyiga kuuriya waa waddan xiran, waxaana mamnuuca in ay galaan saxafiyiinta reer galbeedka ama xitaa saxafi kasta oo ajnabi ah. sidaas darteed maraykanku wuxuu adeegsadaa dayax-gacmeedyada si uu wax uun oga ogaado dhaqdhaqaaqa waqooyiga kuuriya, iyadoo la arkay gantaalo dhulka ku rakiban oo ku aadan jiha ahaan maraykanka. ciidanka waqooyiga kuuriya waa kan saddexaad ee tiro ahaan ugu badan adduunka, 1,200,000 oo askari iyo 6 milyan oo ah ciidanka kaydka oo diyaar u ah inay hubka qaadaan markii dagaal qarxo. ciidanka elektarooniga. Should we worry about North Korea's cyber attack capabilities? The South Korean authorities say the answer to that question is yes. On Wednesday, South Korea's defense ministry said that Pyongyang started waqooyiga kuuriya waxay leedahay guutooyinka ciidanka dhanka elektarooniga kuwa ugu khatarsan, gaar ahaan guutada BUREAU-122, waxaana si weyn loo ogaaday markii ay jabsadeen kumbuyuutarada shirkadda Sony ee Jabaan oo faafisay sawir xun oo laga sameeyey hogaamiyaha waqooyiga kuuriya Kim Jong-un iyo jabsigii macluumaad ku saabsan madaxweynaha koonfurta kuuriya iyo weliba burburintii websaytyo fara badan oo Maraykan ah. ciidanka waqooyiga kuuriya waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee haysto madaafiicda goobta. 손흥민군 전선 포병 부대들의 포병대 집중 화력 타격 연습을 조직해주신 경야는 최고 용도자 기민들. 우리의 일당의 포병들은 경야는 최고 사령관 동지께서 명령만 내리신다면 적들의 서구에 오자비한 포병. kumanaan madaafiicda goobta ayaa ku wajahan magaalada Seoul ee caasimadda koonfurta kuuriya oo keliya 40 kiiloomitir u jirto xuduudka labada qaybood.
ciidanka badda ee waqooyiga Kuuriya. Webka Al Jazeera Net ayaa lagu baahiyey macluumaad ah in waqooyiga Kuuriya leeyahay raxan gujisyo ah oo tiro ahaan lagu qiyaasay 100 gujis, laakiin ah kuwo aad u khatarsan oo qaadi kara gantaalada seeraaro. inta badan awoodda ugu weyn ee ciidanka waqooyiga Kuuriya lagu yaqaano waa gantaalada gaar ahaan kuwa qaaradaha ka gudbo oo gaari kara masaafooyin dhan 6,000 ilaa 10,000 oo kiiloomitir. sidoo kale ciidanka waqooyiga Kuuriya wuxuu ku hubaysan yahay noocyo badan oo kala duwan oo ah hubka sunta ah iyo kan kiimaawiga waliba. tijaabin bamba hydrogeni ah. markii laga hadlayo hubka nuclearka waxaa la wada ogyahay in bambooyinka hydrogeniga ay ka khatarsan yihiin kuwa nuclearka. bishii January 2016 ayuu ciidanka waqooyiga Kuuriya tijaabiyey bamba hydrogeni ah. sidoo kale sirdoonka koonfurta Kuuriya ayaa arrinkaas xaqiijiyay oo sheegay in awoodda qarax ka dhalatay tijaabintaas ay gaartay 6.0 kiilotan. ciidanka gaarka waqooyiga Kuuriya waxay leedahay 200,000 oo ah askar khaas ah, waana tirada ugu badan caalamka oo dhan. waxayna u samaysan yihiin guutooyin yaryar oo aan la ogaan karin meesha ay ka howlgalayaan, waxayna awoodaan in ay qaadaan hub kiimaawi ama sun ah. In reaction to news, the US is sending a carrier strike group to the peninsula. North Korea says it will defend itself using powerful force of arms. Moves by the US for an invasion, it says, has reached a serious phase and validates its need. At the beginning of joint military exercises last month, North Korea fired 4 Scud missiles as a warning to the US and South Korea. xurgufta dhanka hadalka ee u dhaxaysa inta badan Mareykanka iyo waqooyiga Kuuriya waa mid soo laalaabata sanadadii u dambeeyay, mana filayo aniga shakhsi ahaan inay gaari doonto marxalad dagaal ama labada wadan ay isdhaafsadaan gantaalo iyo hub.